kormeer ballaaran oo ay maalinimadii maanta ay gudoomiyaha iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka degmada Caabudwaaq ee maamulka gobolada dhexe ay ku maraayeen kaamabka barakacayaasha ee degmada Caabudwaaq. kormeerkan ayaa ku saabsanaa xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah. xeryaha barakacayaasha ee ay maanta booqdeen gudoomiyaha iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolada dhexe ee degmada Caabudwaaq ayaa waxaa kamid ah kaamka xurfada iyo waliba kaamka dayacan. kaamka xurfada ayaa intaan ku sugnayn waxaa gudoomiye ku-xigeenku indheeyay xarunta iskuulka oo ka samaysan cariish, waxaana gudoomiyaha u warbixiyay gudoomiye ku-xigeenka kaamkaasi. iskuulkayga sidaad ku arkaysaan baa horta deyd xiran waxaa kaleeto oo meesha ka muuqda uusan lahayn xafiis male sida uu sheegtay, wuxuusa kaloo lahayn meesha agabka lagu aruursado oo macnaha qolka store male. adigu dayac badan baa jira xagga macnaha qalabka oo guriyaha waad u jeedaa waxa ka muuqda oo guriyaha noo ah waxa weeye xagga iskuulka aad iyo aad baa loo dayacana wax qalab dhaba oo degdegana aan u baahan. sidoo kale waxaa dadka barakacayaasha la hadlay gudoomiyaha iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka waxayna u ballan qaadeen inay wax u qaban doonaan. sidoo kalena waxay baaq u direen hay'adaha samafalka iyo waliba kuwa dawliga ah inay dadka barakacayaasha wax u qabtaan dhankooda. maanta waxaanu soo booqannay kaamka xurfada ay ku nool yihiin dadweyne fara badan sida ay wax u qabaan xagga caafimaadka, xagga waxbarashada iyo xagga noloshaba. aad ayaa daruuf u adag ayaa nooga muuqatay. waxaanu baaq u diraynaa hay'adaha caalamiga iyo NGO-yadaba in ay soo gaaraan dadkan ku dhibaataysan kaamka. ugu muhiimsanaay u soo booqanay waxaa kamid ahaa in dad badan oo baadiyaha ku barakacay oo ku dhibaatooday ee hadda iyagoo qaxooti cusub ay ku soo biireen magaalada. dadkaas oo aan haysan oo hadda si degdeg ugu baahan hoy iyo cunto intaba. inta kadib ayaan gaarnay kaamka dayacan iyadoona si weyn looga soo dhaweeyay ayna noo soo dhaweeyeen dadka barakacayaasha ee ku sugnaa kaamkaasi. waxaana warbixin siiyay gudoomiyaha degmada gudoomiyaha kaamka dayacan isagoona ka warbixiyay xaaladda baahiyeed ee ka jirta kaamka. waxaan ahay gudoomiyaha kaamka dayacan anigoo magaceedu Bashiir Axmed Xaashi. halkaas oo hadda ay noogu yimaadeen gudoomiyihii maamulka degmada taas oo eegaya baahidayada xerada ka jirta iyo wax ka jira oo dhib ah. taas oo ay ka jirto baahi fara badan aad iyo aad oo dhinac walbaba laga daruuri, laga caafimaad, laga hooy, laga waxbarasho. ugu dambeyntii waxaa la hadlay dadkii barakacayaasha ee ku sugnaa goobta gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka ayagoona sheegay inay dadka u horeeya ay wax u qaban doonaan ay yihiin dadka barakacayaasha ee ku nool degmada Caabudwaaq. waxaanu ku soo booqanay dadweyne fara badan oo dhibaatooyin kala duwan qaba. waxaanu ugu baaqaynaa hay'adaha caalamka, dadweynaha ganacsatada deegaanka degan ee wax haysta in ay wax u qabtaan dadkan oo u baahan xagga waxbarashada, caafimaadka iyo tansiilaadka kale ee baahida asaasiga ah. waxaan anagu rabnaa ka maamul ahaan inaan wax ka qabanno ugu horeyn waxbarashada iyo caafimaadka. maamulkiisa la socotaan dhawaan la magacaabay haddana shaqadiisii si dardar qabata raba inuu bilaabo. waxaanu hawshan ka bilownay maantay waxa kan la yiraahdo inaan soo qaybayna xaaladda deegaanka inaan soo qaybayno si guud iyo si gaar ah labadaba. waxaan anagu ka qaban karno iyo wixii aan cid kale ula qayrsan karnaa intaba aanu markaa si dadkaas wax loogu qaban lahaa. maamulkan ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee booqda lana socda xaaladahooda nololeed dadka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada Caabudwaaq. Mahad Bashiir Cismaan, TV-ga iyo idaacadda SBC Caabudwaaq.